kulan ay maanta ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe Misja ay ku yeesheen magaalada Joor ee caasimadda Hirshabeelle ayaa ujeedkiisu ah sidii uu xorriyadiisa dib ugu heli lahaa wariye Mahad Axmed Calisow oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Joor. ciidamada booliska Hirshabeelle ayaa wariye Mahad Axmed maalin ka hor ku xidhay saldhigga booliska magaalada Joor. ururka Misja ayaa maamulka Hirshabeelle ka dalbaday in wariyaha xorriyadiisa la siiyo maadaama maalintii labaad uu ku xidhan yahay taliska booliska magaalada Joor. Ibrahim Cali Nuur oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa kulanka ka hadlay. maanta way taariikhda tahay 29 bisha December sanadka 2020 aniga ku hadlaya magaca dhammaan ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe ama wariyaasha ka howlgala gobolka. waxaan rabaa in aan baaq iyo codsi baan u diro madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle baaqaasi oo ku saabsan in xorriyadiisa dib loo siiyo wariye Mahad Axmed Calisow oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Joor isla markaana ka tirsan idaacadda Radio Joor sidoo kalena ah wakiil wareedka TV-ga goobjoog ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaan rabaa madaxda iyo waliba cid waliba ay qosayso xariga wariyaha in si shuruud la'aan ah xorriyadiisa in dib loo siiyo. waxaan ognahay wariyaha in habeenkii labaad uu ku hoyday saldhigga booliska magaalada Joor. runtii sharciga ama dastuurka waan ognahay wuxuu dhigayaa in muddo 24 saac gudahood ah in qofkii la soo xira in uu ku helo cadaalad ama in maxkamad loo gudbiyo. marka wariyuhu laba habeen ayuu ku xiran yahay saldhigga booliska magaalada Joor ilaa haddana aysan jirin cid soo eedeysay oo markaasi xirigiisa ku soo eedeysay wax loo haysta ama in maxkamad la geeyay oo ay soo maxkamadaysay isla markaana xukun ku soo riday isagoo markaasi maxkamadda u codsanaysa dambiga loo haysta ilaa hadda ma hayno. laba habeen ayuu saldhigga ku jiraa taasina ma ahan mid suuragal ah. runtii waana ka xunnahay haddaan nahay dhammaan saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe. marka waxaan rabaa mas-uuliyiinta iyo waliba cid waliba ay qosayso xariga wariyaha waxaan rabnaa in aan markaa baaq u dirno baaqaasi oo ah in si shuruud la'aan ah wariyahaasi lagu soo deeyo xorriyadiisana inuu si dhaqsila inuu ku helo. runtii haddii ay jiraan dambiyo uu galay ama dambi haddii loo haystana waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta iyo weliba laamaha amniga in ay cadaaladda hor keenaan ama maxkamad ay u gudbiyaan waa haddii ay jirto dambi uu galay oo markaasi maamulka uu ka galay ama shakhsiyaad uu ka galaybo. marka si guud haddaan nahay bahda saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan dalbanaynaa in xorriyadiisa dib loo siiyo wariyaha.